isbeddelka cimilada climate change saamaynta isbeddelka cimilada nabaad guurka deegaanka isbeddelka cimilada in badan ayaa maqashay isbeddelka cimilada waa si dhab iyo xaqiiqo jirta seegseegga roobka abaaraha joogtada ah daadadka tandhaafka ah duufaannada dabaylaha bacaadka magaalooyinka dhan qariyey iyo in kale ayaa ka mid ah raadadka aan ku garowsan karro saamaynta isbeddelka cimilada ee dalka ka jirta dad badan ayaan weli faham buuxa ka haysan sababta keentay hawlahan isbeddelaya laakiin in badan ayaa garowsan in ay tahay saamaynta isbeddelka cimilada oo dal walba oo dunida ka mid ah uu si uun u dareemayo soomaaliya waxa ay la daalaadhacaysaa dhibaatooyinka deegaan ee dhashay waxaana isbeddelay habnololeedkii bulsho badan oo soomaaliyeed puntland oo ah deegaan baaxad leh juquraafi ahaanna kala gedisan waxaa dhaba in uu wajahayo caqabadahaas oo sannad waliba isa soo taraya abaaraha waddanka dhacay waxaanu ka sheekayn karno maaha oo wax badan oo dunida oo dhan saamaysay markii jilaal la soo maro waa la doogi jiray barwaaqa la geli jiray doog waa la waayay abaaraha joogtada ah ayaa keenay in xoolo dhaqato badan ay cayroobaan oo ay soo miciin bidaan kaama barakacyaal oo ku yaal magaalooyinka sida wasaaradda arrimaha gudaha puntland sheegtay barakacayaasha ku nool gudaha puntland waxa ay kor u dhaafayaan 451 kun oo ay ka mid yihiin inta miyiga ku soo xoolo beelay bandarrada qudhooda ayaa wajahaya hoosu dhac dhaqaale iyo cunayari ka dhalatay kadib markii uu yaraaday wax soo saarka beeralayda iyada oo roobwaagu uu keenay in ay suququr noqdaan biyaha ceelasha jiraaga ah kuwaas oo mararka qaar ay ka dhalato isku dhac degsimooyinka dhexdooda ah kolka uu da'o roobkii oo raagay waxaa ka dhashay daadad iyo duufaanno burbur u geystay kaabayaasha dhaqaalaha puntland magaalooyinkana ku sameeyey fatahaado halkan waa gaalkacyo oo ay xaafado dhan harqiyeen daadad soo rogmaday xilli roobaadkii ugu dambeeyey kuwaas oo hoos u dhigay isu socodka nolosha bulshada abriil ilaa juun 2024 ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay daadadka roob ka da'ay gobolka mudug iyada oo ay saamayn taban daadadkaasi gaarsiiyeen in ka badan 268 kun sida ay sheegtay hay'adda OJA sidoo kale sanadkan 2024 bishii May 21 kun oo qof ayuu saamayn nololeed iyo mid dhaqaaleba ku reebay daad ku rogmaday degmada Qardho sida ay sheegtay hay'adda bisha cas magaaladan laba xilli oo hore ayaa daadadku waxyeello nafeed iyo mid dhaqaaleba gaarsiiyeen xilliganna si xal waara loogu helo daadadka Qardho dhaqaale gaaraya ilaa 3 milyan oo iska kaashadeen bulshada iyo dawladdu ayaa lagu furayaa waddo biyuhu maraan marka ay soo dhacaan biyo xoog leh waxa ay halis geliyaan dooxooyinka xoolo daaqeenka ah ee awalba dhirtu ku yarayd kuwaas oo ay ka dilaacaan boholo sannad waliba sii fidaya oo horseeda nabaad guur dhulka ku dhaca boholuhu waa khatar ka jirta in badan oo dhuldaaqsimeedka puntland ah halkan waa hadaaftimo gobolka sanaag boholaha dilaacay waa halis ku fidaysa magaalada dhulbeereedka iyo xabaysihii xooluhu daaqi jireen intaba dooxooyin tirabeel ah ayaa halistaasi ku sugan sida midda raka raaxo inkasta oo bulshada deegaanku dhagaxan ku teedeen si ay u dhimaan ugu yaraan xawaaraha biyaha una yareeyaan fiditaanka bohosha haddana waa hubaal in afqabashada bohoshani aysan intaasi ku fillayn oo loo baahan yahay tacab intaasi ka mug weyn geedka garanwaaga ayaa dhankiisa faraba ay ku haya dhuldaaqsimeedka iyo magaalooyinka oo uu ku fidayo xaalufka deegaanka dabaylaha joogtada ah iyo in badan oo kale ayaa horseeday in bacaad tuuran u aasay magaalooyin dhan oo dhaca xeebaha puntland kulub iyo dhinowda oo ka mid ah inta bacaad ku duugay waxaa xirmay goobihii u adeegi jiray arrimaha bulshada iyada oo degsimooyinkii halkaasi ku dhaqnaa ay barakaceen oo noloshii magaaladuba ay istaagtay puntland waxa ay leedahay xeebta ugu dheer soomaaliya caqabadaha kale ee deegaamadaasi wajahayaanna waxaa ka mid ah badda oo ku fidaysa berriga iyada oo magaalooyin caluula ka mid tahay biyaha baddu dumiyeen dhismayaal badan aafooyinka kala duwan ee ka jira puntland ayaa loo tirinayaa saamaynta isbeddelka cimilada oo sannad waliba isa soo taraysa inta xoojinaysa falkaas waxaa ka mid ah ficillada guracan ee dadku kula kacayaan deegaanka oo ay ugu horrayso jarista dhirta loo isticmaalayo dhuxusha iyo xaabada soomaaliya waxaa hay'adda fow sheegtay in sannad walba 8 milyan oo geed loo jaro si loogu isticmaalo dhuxul ahaan ama xaabo ahaan puntland inkasta oo joogto looga hortago shidista dhuxusha haddana wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waxa ay sheegtay inay weli jiraan dhul laga shido dhuxusha laguna dadaalayo sidii loo joojin lahaa waxaa kale oo ka mid ah culeysyada deegaanku wajahayo maarayn la'aanta qashinka magaalooyinka deegaamaysiga aan loo aaba yeelin iyo laynta ugaarta oo iyaduna masiibo ku ah deegaanka inkasta oo ay jiraan duruufahaasi
haddana waxaa xusid mudan dadaallada bulsho iyo kuwa dawlo ee wax lagaga qabanayo ficillada gurracan ee deegaanka. Dhahad waxaa loo aayay go'aamadii adkaa ee ilaalinta deegaanka, waxaana xilliga kani soo kabanaya dhulkii horay u xaalufay markasta dhowrsan. dhanka kale degmada Ayl ee gobolka Nugaal bulshadu waxa ay go'aan wada jira kaga hortageen deegaamaysiga dhuldaaqsimeedka oo xilligan halkaasi aan ka jirin. sidaasi si lamid ah degmada Jiriban waxa ay ku suntan tahay badbaadinta ugaadha oo bulshadu ay go'aamo adag ka soo saartay kadibna dhaqan gelisay. wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waxa ay dadaalkooda ku abaalmarisay deegaamadaasi isu xilqaamay ilaalinta deegaanka ee gaaray go'aamada dhaxalgalka ah. waxaa jira difaacyo dadaal u baahan oo lagu dhimi karo halista ay wajahaan xeebaha Puntland, sida khubarada deegaanku ay isku raacsan yihiin geedka shawrada ee ka baxa dhulka xeebaha ah waxa uu ka mid yahay inta lagaga hortagi karo dhibta isbeddelka cimilada ka dhalan karta. geedka shawriga oo loo yaqaano mangrove ayaa wuxuu yahay geed faa'iidooyin badan u leh deegaankeena iyo bulshadeennaba. sidaan ogsoonahay geedkan ayaa ka baxa gabi ahaan Soomaaliya meelaha xeebaha ah. waxaynu ogsoonahay geedka mangrove asoo ka mid ah geedaha badan oo faa'iido u leh deegaanka in ay faa'iidadiisu ay tahay inuu hoy u yahay noolayaal kala duwan kuwaas ay ka mid yihiin dhirta iyo xayawaanka intaba. faa'iidooyinka laga helo geedkan ayaa waxay yihiin inuu yahay waxa loo yaqaan carbon sinker ama diqowga ama wasakhowga hawada ka yareeya isla markaana ka qayb qaata yaraynta saameynta isbeddelka cimilada. haddaba si loo dhimo ficillada lidiga ku ah deegaanka loona yareeyo saameynta taban ee ka dhalatay isbeddellada cimilada, wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waxa ay qaaday tallaabooyin dhowr ah. wasaaraddu waxa ay dhistay 33 xarumo bulsho oo heer tuulo ah kuwaas oo loogu talagalay qabashada shirarka maaraynta iyo ilaalinta deegaanka. dhanka kale wasaaraddu waxa ay dayactir ku samaysay dhul badan oo ay ka jireen dhibaatooyin deegaan. ilaa 2500 oo hektar ayaa laga shaqeeyey dhul badan oo Puntland ah kuwaasi oo ay boholo ka dilaaceen xilligan soo kabanaya. wasaaraddu waxa ay biyo weecin ka samaysay in ka badan 20 dooxo oo Puntland ah si uu deegaanku dib ugu soo laabto. dhanka kale 5 sano ee ugu dambeysay xilliyada roobka da'o wasaaraddu waxa ay xirmaysay 5 dooxo oo ku yaala gobolka Karkaar iyo Nugaal kuwaas oo laga baajiyay in cag iyo cidi lagula tago lana xirmeeyay ilaa inta ay soo noolaanayaan. si loo yareeyo dhuxusha iyo xaabada waxa wasaaraddu 12,000 oo qoys oo dan yar ah u qaybisay gaas iyo qalabkiisa oo dhammaystiran. sidoo kale 15,000 oo qoys oo dan yar ah ayaa loo qaybiyay birkijooyinka tashiila dhuxusha iyo xaabada, iyadoo oo 5,000 oo ganacsatada yaryar ahna la siiyey birkijooyinka tashiila dhuxusha si loo yareeyo ka ganacsiga iyo shidista dhuxusha. waxaa la qaaday ololayaal dhir beeris iyadoo oo la soo saaray dhir dhan 368,000 oo geed kuwaas oo loo qaybiyey bulshada kala duwan ee ku nool deegaamada kala gedisan ee Puntland. si kor loogu qaado baraaruga bulshada wasaaraddu waxa ay tababar u qabatay in ka badan 50,000 oo qof kuwaas oo lagu tababaray ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta, xoojinta shuruucda deegaanka, isbeddelka cimilada, maaraynta dhuldaaqsimeedka iyo cagaarinta magaalooyinka. halka wacyigelin loo sameeyey in ka badan 1.5 milyan oo qof kuwaas oo la gaarsiiyey fariimaha ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta, iyadoo oo loo marsiiyey agaasimada kulamo waaweyn, warbaahinta kala duwan iyo fariimo loogu diray telefoonnada gacanta ee shirkadaha isgaarsiinta la marsiiyey. wasaaraddu waxa ay baahisay shuruucda deegaanka iyo duurjoogta waxaana kor loo qaaday fulinta shuruucda iyadoo la hirgeliyey sharciga saamaynta deegaanka iyo bulshada. intaasi waxaa dheer cilmi baarisyo kala duwan oo laga sameeyey arrimaha la xidhiidha deegaanka iyo duurjoogta, qaar laga sameeyey tamarta ay isticmaalaan qoysaska ku nool Puntland iyo tu lagu baarayey saamaynta gurracan ee garanwaagu ku yeeshay dhuldaaqsimeedka Puntland si loo gaaro go'aamo lagu wajahayo arrimahaasi.